بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشركين المانتا waxaa uu ku saabsan yahay creating your company file kaasi oo ka hadlaya hal abuurka ama sida loo abuurayo company-gaaga QuickBook dhexdiisa hadaba aynu halka kaga tagno faahfaahinta dheeraadka ee casharkeena aanaynu u guda galno isla casharkeena hadaba computer account-kii hadaba programkeena furano si aynu u eegno programka gudihiisa una abuurno company ku shaqeynaya programka loo yaqaano ama software-kan loo yaqaano QuickBooks barnaamijka markay furano saas uu kugu soo baxaya marka aan wax company wali la gelinin ama wax business ganacsiga lagu dhex abuurin san ayuu eegyahay hadaba waxaan doonayaa maanta hadii la haydmo inaynu halkan ku bilowno casharkeennii ugu horreeyay ee la xiriirayay software-kan QuickBooks casharkaas oo ku saabsan abuuritaanka company-ga ee QuickBook dhexdiisa ama casharka waxa noqonaya qaybtii koobaad ee abuuritaanka company-ga sida awgeed si aynu company-ga u bilaabano abuuritaankiisii waxaad marka hore odhanaysaa saddex baa halkan kaaga muuqda saddex qodob ama saddex icon baa halkan kaaga muuqda kaasi waxa weeyaan waa create a new company cusub abuur ama company cusub samee halkan waxa weeyaan open and restore existing company horu sii jiray systemka dhexdiisa ku bilow ama company horu sii jiray furo way halkan waxa kaaga muuqda iyadana open in a sample file sample oo wato programkani ama muunada ama tusaale ah oo programkani wato software-kani wato ayaad furanaysaa isagana ganacsigu wuxuu noqon karaa inuu noqdo service inuu noqdo ama inuu noqdo product marka waxay ku leeyihiin ma waxaad furanaysaa ood eegaysaa tusaale ama muunad ama sample ku saabsan product based business ama ganacsi iibinaya alaab mise waxaad furanaysaa business ku salaysan service ama adeeg iibinaya marka waxba inagu sample-ka furan mayno mid inagu leenahay intaynu casharkan ku guda jirno ayaynu dhiganaynaa oo aynu furanaynaa imika samaysanaynaa inagu sidaa awgeed waxaad oranaysaa create new company markaad intaa doorato kadib sidan ayuu kugu soo baxayaa markuu sidan kugu soo baxo wuxuu ku leeyahay let's set up your business-kaaga set up garay ama abuur halkan waxa kugu taala start setup bilow ama setup-kaaga bilow ama business-kaaga bilow abuuritaankiisii halkana waxa kugu taala share sidaa awgeed haddii aan tan imika aynu ka bilaabno si simple ayuu inoogu abuurayaa marka laga yaaba macluumaad hadhow toole QuickBook dhexdiisa ama company-geena dhexdeeda QuickBook inaynu macluumaad u baahanay naga reebo oo aynu ka weyno waxyaabo ama transactiono business-ka dhexdiisa ka dhacay inaynu program gudihiisa ka weyno waayo waxa la doonayaa programkan gudihiisa in aynu ku aragno dhacdo kasta oo dibadda ka dhacaysa ee business-ka caadiga direct uga dhacaysa waaqiciga in aynu programka gudihiisa ama software-ka gudihiisana aynu ka helno sidaa awgeed waxba start setup ma ku dhufan mayno share baan soo furanaynaa waxaan ka dooranaynaa advanced setup sidoo kale waxa halkan aad ku aragtaa convert quick data allahumma salli ala Muhammad convert other account software data inaad datooyin software kale ku jira aad halkan keento marka inagu waxaynu dooranaa advanced setup sida ugu fiican baynu inoogu abuuraya inoogu setup garaynayaa company-geena magaciisa waxaynu u bixinaynaa hadba company-gaaga magaciisa aad barta ku qoraysaa inagu imika waxaynu la baxaynaa ABC company okay legal name-kana waxaad ku qoraysaa magacaaga suun caadiga ah ABC company after that marka intaan kasoo gudubno waxaan samaynaynaa halkan waxa laga doonayaa tax ID haddii waddanka country-ga aad joogto tax
ID uu ku siiyo uu leeyahay. Tax waa cashuurtana dowladda ku shuqul leh, hadba dowladdu siday tahay bay ku xidhan tahay. Inaga markaa waxba tax ID samayn mayno. Street-ka ama street address-ka ayaad halkan ku qoraysaa, magaalada halkan ku qoraysaa, state-ka halkan ku qoraysaa, zip-ka halkan ku qoraysaa. Marka wadamada sida fiican u dhisan waxaan oo dhan waa available. Halkan address-ka waxaan jeedaa email-ka ayaad ku qoraysaa, halka website haddii uu company-gu leeyahay ku qoraysaa, halkana email address haddii company-gu leeyahay. Macluumaadka aad imika gelisay halkaasi waxay hadhow si toosa uga soo muuqan doonaan voucherada aad dadka u jaraysa aad ku shaqaynayso ee dadka siinayso haddii aad uga daabacayso programka dhexdiisa. Maaha haddii aad kuwaagii bugaagtaad hore haysatay ama manualka ahaa, haddii aad programka dhexdiisa uga daabacayso si toosa ayay company-ga magaciisii, address-kiisii halku yaallo, taleefankiisii, website-kiisii iyo email-kiisiiba intaad halkan gelisaaba hadhow toole si toosa ayay uga dul muuqan doonaan voucherska kala duwan ee aad macaamiishaada siinayso hadhow toole insha Allah. Next baan leenahay. Halkan wuxuu ku leeyahay select an industry from the list. Industry-ga uu ka tirsan yahay ama business-kaaga nooca ganacsiyeed ee uu yahay halkan ka dooro. Ma accounting or bookkeeping ba, ma advertising or public relations ba, ma wax buu xayeysiiyaa, ma xisaabiyaalba. Waxyaabahaas oo dhan ayaa bartan noogu jira. wax badan baa ku jira, imika low baa halka ka muuqda, manufacturing baa halka ka muuqda, warshad, non-profit organizations baa ka muuqda. Okay, innaga waxaan doonaynaa inaynu samayno company alaab iibinaya, so that waa inaynu doornaa general product based business alaabaha guud iibiya, oo macnihii sector gaar oo alaabiba kala duwan aan ku xidhnay. Okay, next baan leenahay. After that waxaa halkan imika inoogu soo bandhiga haddana ma business-kaagu waa noocee ayuu organize garaysan yahay company-gaagu. Ma sole proprietorship oo qof keliya taa leh ama ownership sida la yidhaahdo, mise partnership, mise dad kala duwan baa leh, mise corporation oo waa dad fara badan oo kala duwan baa leh, mise waa non-profit, mise waaba intaa midna. Marka wixii uu yahay baad business-kaaga dooranaysaa. Innaga halkan waxaynu ku soo bandhigi doonaa company uu qof keliya leeyahay, sole proprietorship baynu dooranaa. Okay, markaan kaa doorano sole proprietorship, next baad leedahay haddana. After that wuxuu ku leeyahay fiscal year-kaagu, sanadkaagu halkee buu ka bilaabmayaa, ma January mise bilaha kale sanadkaagu. Marka hadii jeer wax fiican si sanad xisaabeedka aad xisaabta xidhaysa uu kula jaan qaado ka caalamka, in fiscal year-ka aad ku base garayso ama xilliga aad meheradaada furayso ama hawshan aad qabanayso aad ka dhigto sanadka cusub, ama 6 bilood oo aad hadhow toole ka doorato June oo kale. Marka waxa ku fiican hadii jeer inaad fiscal year-kaaga January ka dhigto, waayo programka xataa xisaabaha sida caalamka January iyo December baa lagu joojiyaa. January-na hawsha cusub bay bilaabantaa. January haddaad la bilowdo, December dhammaadkeeda 31 December waxaa kuugu xidhmaysa xisaabtaada iyo company-da oo aanay hal bil xataa ka maqnayn iyo hal ayaan toona. Halkan wuxuu ku leeyahay password ku xidho, administration password, password-kaagii maamulka ku xidho, ama wuxuu ka dhigaya qofkii meesha lahaa inuu meesha maamulanayo. Password-na waad ku xidhan kartaa. Okay, inagu imika waxba ku xidhmayno laakiin waad ku xidhan kartaa. Markaad ku qorto halkanna mar labaad ku qorto, kaad halkaa ku qortay unbaad halkanna mar labaad ku qoraysaa. Next baad leedahay. After that create your company file buu ku leeyahay. Filekii company-geena ayuu abuurayaa, waxaanu ku dhex abuurayaa computer-keena dhexdeeda. Imikaynu arki doonaa. Next baan leenahay. Okay, wuxuu ku leeyahay magacan company-gaaga iyo daatada halka aad ku kaydinayso halkaybaad computer-ka ka dhiganaysaa, ama desktop-ka, ma library-ska, ma PC-ga, ma documents-ka, waxyaabahaas. Marka inagu desktop in dooranaynaa. Desktop-ka ayuu magacan company-geena hadhow toole kasoo muuqan doonaa ee computer-kayga insha Allah. Save baan leenahay. Wixii aan soo wadnay ayuu set up garaynayaa. Company-ga faylkiisii ayuu abuuray. Allahumma salli ala Muhammad. Markuu inta abuuro waxaa haddana inoo sii socon doona company-ga abuuritaankiisii oo qaybo kale oo badan oo kala duwan ay nooga hadhan yihiin. Imika faylkii baynu maraynaa. Waa tallaabooyin loo baahan yahay inaynu qaadno si business-keenu hadhow toole shaqo fiican inoogu qabto software-kan aynu ku isticmaalayno.
okay imika wuu inoo dhameeyey oo wuxuu ku leeyahay kuugaagii sidan u hadhow toole kugu soo muuqan doonaa. okay next baan leenahay. maxaad iibinaysaa buu yidhi, ma service keliyata ma alaab keliyata mise labadaba. okay kaa doonta waa dooran kartaa. inagu waxaan dooranaa product only. next dheh. wuxuu ku leeyahay do you charge sales tax, miyaad sales tax ama cashuur la socota iibka ama VAT tax waxa la dhahdo value added tax shaygaa lagu daraa oo dowladda kaa qaadaysa. oo tusaale ahaan shaygaa $10 siisay $, adba haddii sidii laga dhigay ku xidhan tahay, laakiin kasoo qaad inay $, dowladdu leedahay. 9 kale aada qasnadeeda ku ridanaya $kana dowladda ayaa qaadanaysa. marka haddii value added taxkaas oo kale uu shaqaynayo waddankaaga waad dooran kartaa. haddii aad yeesta doorato saa ku daysatona recommendation buu system nagu siiyey, sidaas ayaa kugu fiican, waad iska daynaysaa iyada xuma. okay sidoo kale estimates buu ku yidhi, ma u baahan tahay estimate-ka ama qiimo sheegta waxa loo yaqaano ee aad macaamiishaada siin doonto inaad isticmaasho tab software-kan dhexdiisa ku samaysan. okay maadaama software-ka ku shaqaynayno, software-ka tiisa inaynu isticmaalo weeyaan, waxba inagama xumo macluumaadkeennii oo dhan iyo wixii aanu ta kale ama walkaa ku qoran lahayn buu inagu qoray. yes dheh. okay waqtigaa inaga soo gabagaba noqday, waynu ku dheeraanay. halkaas ayuu maalinta bacshirka inaga sii socon doonaa. waxaan jeclaan lahaa in halkan ku joojiyo. waan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.